بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته والدرس كي صدحادة كصاب سنة من دلائل النبوة waxaynu habeenkii u dambeysay ka soo wararnay wax ka mid ah qaybkii quraanka iyo nabigu calayhi salaatu wasalaam ay ka warrameen oo ku saabsiisnaa mas'alada geerida dad uu nabigu tilmaamay meeshay ku dhimanayaan qaabkay u dhimanayaan gaal iyo muslim waxay ahaan doonaan janniyo naar waxay gelayaan ayaynu soo tilmaamnay caawana waxaynu ka sii warrami doonaa qayb kaloo ka mid ah مسائل الغيب ونبي عليه الصلاة والسلام كورمي واتينو لوا ترى بدن يهين علماء قاربا صدح كنا مسألة قارسيسة إمام النووي رحمة الله عليه في مقدمة شرح مسلم وحكو الشيخ يكون يلا وبقولني قارسه إمام البيهقي في دلائله مثل مدخلك وحكو الشيخ يكون بالرجينية على كل حال وحنا لي نطف أما مقتطفات أما قيبة يرير تصال يالبين وكقاضرينا عدي بالبلارس الربطة مراجع ده ونغفرتها وحين عاوة المام دون مركاسي كو وحيا النبي عليه الصلاة والسلام غيبة أو كور رمي أو إساقو إنتو نولاد دبتنا حقيقة وبيودعي إيا وحيا غيبة أو كور رمي وبعد موتي جارد النبي عليه الصلاة والسلام دبدا دعي قيبتك واتسدي عادة ينوهيت هذين كبلونا آية من كتاب الله سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى سورة الروم لا يدهده أيوه حقا ورمي قصدي غير الروم أما الروم نسكن من كي لورنشري ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون إلهي سبحانه وتعالى آيات كاسي قرآن كاوحو كاورمية روم نمانك الله يدادا من روم نسكو إن لتشبيي ولغو تشبيي في أدنى الأرض كدبنا بضع سنين كدبنا إني تشبين دونان ودبو صنولان دونان قصدني وحي كاورمي سالبت دولة دودو ووينو دوني دا كتشري دولة بيرشيا أما إيرانيين تاي حكومي جيرين هي الدولة دي كسهر جيدا يو بيزنطيين تاهيد رومانسكا قولادي بيزنطيين تالورين جيري لبدا حوغا وقتيغا عصرغا دونيدا ugu xooga badan labay ahaayeen waxa dhacday dawladii Romanska looran jiray in gudaheeda inqilaab ka dhacay oo boqorkii Morris loo oran jiray waxa inqilaabay in Fox la yiraahdo inqilaabkaasi markuu dhacay waa askar gadooday oo dabeetana meesha inqilaab ku qabsatay kadibna boqorkii Bershiya dagaal soo qaaday dagaalka uu soo qaaday asbaabo badan baa la sheegay laakiin inaga waxa sidanteena maaha waxaan ka warramaynaa dhacdada quraanku uu ka warramayo labada nin xidid bay ahaayeen waa la tilmaamaa wax kale badanna waa la sii sheegaa dagaalkii uu soo qaaday isagoo iska dhigaya boqorkii inuu hiilinayo ayuu soo waday dhanka dawladda Romanska oo dhul ballaadhan markaa haysata Yurubta koonfureed qayb ka mid ah Aasiya suqra dhulkan loo yaqaanay Turkiga iyo wixii la halmaala ah Shaam oo dhan Masar North Africa qayb ka mid ah waxaasoo dhan waxa maamuli jiray dawladii Romanska loo oran jiray ee Byzantine tahay markii inqilaabku dhacay ee dawladda dhexdeedii fawda ka dhacday ayaa Hiraqalkii weynaa odaygii askariga ahaa qaa'idka askariga ee North Africa markaa u joogay boqortooyadii baa inankiisii soo diray inankiisuna waa Hiraqalka cadiim Roomka uu nabigu calayhi salaatu wasalaam waraaqa u diray inankiisu ciidan soo siiyay inuu dawladda badbaadiyo قسطنطينيو يمي نمانكي كعدون كسميي بو كتخلصي فوكسكي بو ديلي دولة دي بو دبو قبصدي
laakiin boqorkii bershiya dagaalka ma joojin dagaalka wuu ku waday ilaa iyo xad uu gaadhsiiyey aad u adag oo ah inuu qabsado magaalooyinkoodii waaweynaa intii badnayd shaam oo dhan buu ka kiciyey oo falastiin iyo shaam iyo waxaan oo dhan antakiya oo magaalooyinkii ugu waaweynaaye marka ay maamuli jireen buu qabsaday wuxuu qabsaday bayt almaqdis oo weliba uu qaatay asaliib almuqadas cindahum saliibkii weynaaye muqadaska ay rumaysanaayeen ciise lagu daldalay buu xataa wuu qaatay kaniisat alqiyaama qudus ku taalla wuu burburiyey masar wuu ka qabsadiyo iskandariya dhulkuu la simay dowladdii romanska la odhan jiray qustantiin dacalladeeduu marayaa markaa wiilkan yare markaa boqorka ee romanska madaxda oo heracles la yidhaha waa wiil yaroo iska tumanaya sida ay sheegayaan taarikhyahanada reer galbeedku waxay sheegayaan gabadhuu abti u yahay buu iskala tumanayeyba walaashii dhashay markuu arkay in lagu soo dhadhow yahay magaaladii qustantiniya la odhan jiray ayuu is yidhi baxso dabeetana asqafkii weynaa wadaadkii ugu weynaa kiniisadda ayaa yidhi may baxsi maanta kuuma yaallo heshiis raadi ninkan inaad heshiis la gasho aynu heshiis gallo ha baxsanin sidii buu aqbalay safiir buu u dirtay boqorkii kisra boqorkii yani bershiyanka ayaa safiir loo soo diray iyadoo laga codsanayo inuu sulxi ay wada galaan sulxiga waraaqdii uu u soo qoray aad buu uga cadhooday boqorkan oo isla weyn marka kan oo u arkaya dee dowladdan inuu jebiyo ka takhallusay wuxuu u soo qoray waraaq uu ku qoray bay idhahdeen min ladun alilaah kisra aladi huwa akbaru laaliha wa maliku اlardi kulaha ilaa cabdihi اla'iimi algaafil hiraqal waraaqdu waxay ka socotaa buu yidhi ilaahii weynaaye kisra isagaa ilaah isku sheegaya ee dhulka oo dhan haystay waxaanay ku socotaa addoonkiisii la'iimka ahaa xumaa ee haafilka ah ee hiraqal la odhan jiray haddii weedhaha ku qoraayo ay soo naqliyaan qolada kristanka ahi waxay tilmaamayaan wuxuu leeyahay ilaahaagu hadduu ku badbaadin karayo ha ku badbaadiyo akhiiran wuxuu aqbalay inuu heshiis la galo heshiisku la gelayo waa heshiis aad u adag 6 sannadood markuu dagaalku socday buu heshiiskan aqbalay heshiisku waxa weeyaan kow 1,000 taalent oo dahaba iyo 1,000 taalent oo fidaa silvara iyo 1,000 thoob oo xariira iyo 1,000 faras iyo 1,000 gashaantiya habla cadraa bikrada ah intaa inay bixiyaan Edward Gibbon oo ah qoraal reer galbeed ninka qoray buuggan la yidhaahdo The History of Decline and Fall of the Roman Empire ayaa wuxuu leeyahay heshiisku wuxuu ahaa buu yidhi shuruud mukhziya shuruud wax dullaynayso liidata ayuu ku soo qortay buu leeyahay 1,000 taalent uu sheegayo taalentku waa miisaan waaga hore la isticmaali jiray xawaalay waxay yidhahdaan 26 kiilo meelahaas u dhigmaya yacni waa 26 kiilo iyo dahaba 26,000 oo kiilo iyo dahaba weeyaan iyo in leego fidaa silvara iyo 1,000 taalent oo xariira taalentka xariirtaayna waxay dhahaan waa 30 mitir yacni waa 30,000 oo mitir oo xariira waa wax aad u adag hiraqal fursadda la siiyey wakhtiga la yidhi ku bixina wakhti aad u yar bay ahayd way ku adkaatay dabeetana dani waxay biday inuu baxsado iyo inuu bal dagaal isku dayo holliyo wakhtiga caynkaasi ah ee bershiya ay dhulka la sintay nimankii romanska la odhan jiray oo wakhti cidi saadaalin karta aanay ahayn ayaa qur'aan soo degay sheegaya romanska in la jebiyey oo fii adna alardi lagu jebiyey laakiin fii bidca siniin inay dib u guulaysan doonaan
gibbon laftiisa ayaa wuxuu leeyahay nubuu'adatan yacnii odoroskan islaamku uu sheegay buu leeyahy odoros ka fog oo la sheegi kara ma jira buu leeyahy yacni wuxuu tilmaamayaa wax caqli bini aadam uu odorosi karo inaanay ahayn dowlad dhulka lala simay oo dhulkeedii oo dhan la qabsaday oo magaalooyinkeedii ugu waaweynaa iskandariya dimishq antakiya wixiiba laga qabsaday qustantiin ay ku hadhay oo heshiiska noocana lala gelayo sii baabaaday oo boqortooyadoodii inqilaaba ka dhacay oo askari yare hadda qabsaday ma aha buu leeyahay heshiis la saadaalin karo laakiin rabu samaawaati waalardi baa qur-aan soo dejiyey tilmaamaya qulibat iruumu fii adna alard romaniska in la jebiyey meeshaasi lagu jebiyey laakiin jabka ay jabeen gadaasheed bidca siniin yacni wax 10 sano ka yar bay dib ugu guulaysan doonaan ayaa ilaahay subxaanaه wa tacaala tilmaamay waa nubu'a runtii aada u gariiba laakiin rabu الsamaawaati waalardi baa soo dejiyey qurayshi way gariibsatay wax la rumaysan karo waxaan ahayn ayay u arkeen dabeetana abibakar iyo qoladana lagu jeesjeesayaa la yidhi waxaa miyaad rumaysan tahay haa buu yidhi sharad nala gal baa la yidhi sharad nala gal sharad buu la galay 5 sannadooda 5tii sano waxba isma bedelin nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkaasi suu sheegaya wuxuu yidhi maa duuna 10 la gashid dabeetana ii kordhiya buu yidhi duuna 10 ka dhiga 10 wax ka yar waa laga aqbalay ilaahi subxaanaه wa tacaala siduu sheegayay baa dhacday raqal mujuunkii iyo waalidii iyo wixii uu ka baxay ciidan wixii uu helayay buu dib u urursaday dagaal buu dib ugu diyaar garoobay wuxuu bilaabay inuu isdifaac galo bale inuu weerar galo 623 markay taariikhdu maraysay baa la yidhaahdaa ayuu dib u soo celiyey 3 hujuum oo xooggan buu ku soo qaado kala dambeeya ilaa iyo ninway oo caasimadoodii iyo agagaarkeedii uu qabtay ilaa iyo isna wuxuu gaadhsiiyey markii dambe naaril muqadaska uu qaatay dabka ay caabudi jireen yacni dowladdii bershiya uu ka takhallusay bale bershiya markay aragtay in wuxuu ku adag yahay iyada gudaheedii baa inqilaab ka dhacay oo shirawe boqorkii la odhan jiray inankiisii ibrawiz boqorkii la odhan jiray inankiisii ayaa inqilaabay aabihii intuu xidhay 5 maalmood markuu xidhnaa duruuftii xadhigu ku dhintay 18 wiil oo odaygu dhalay oo kan walaalayiinna aabbihii hortoodu ku gowracay 4 sannadood gudahood ayaa 9 boqor isku beddeshay yacni bershiya dib baa dhulka loola simay bershiya marka uu jabkani ku dhici doono waa markuu nebi moxamed u soo diray calayhi salaatu wasalaam waaligiisii yeman joogay isagoo le soo qabta ninkan waraaqda ii soo qoray ee xaggan joogay la sheegaya madiina oo ay nebiga u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam uu nebigu u sheegay markaasi si ay asxaabu siyarku soo naqliyaan ina rabbi aniga rabbigiinnii wuu dilay buu ku yidhi markay u yimaadeen labadii la yidhi soo qabta ayuu ku yidhi waxaanu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inaan boqornimo dambe u kacaynin qolada tan calaa kulli xaal 4 sano muddo ah ayaa 9 isku beddeleen waxa uu tilmaamaysaa markaa aayadda tani dhacdo aan bini aadamku saadaalin karayn wakhtigaasi ayaa ilaahay subxaanaه wa tacaala ka warramay saadaashu sidii uu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam qur-aankii ku soo degay uu tilmaamayna way u dhacday qadaayaadkuu nebigu calayhi salaatu wasalaam tilmaamay ee qeybkii uu ka warramay waxaa ka mid ah yani waxay yidhahdaan culammadu masaladatan lowlaa aanu waxyi ahayn marka hore ninka waxaan ka warramo waxa la odhan laha maxaaba ku kalifay beedkaaga meel aanaad garanayn waxay ku dambayn doonta maxaad u saaraysaa laakiin waa waxyi waa qur-aan samada ka yimi oo rabu samaawaati waalardi uu soo dejiyey waxyaabaha qaybkii uu nebigu ka warramay waxaa ka mid ah calayhi salaatu wasalaam isagoo dagaal u xidhxidhay qisada wada taqaaniin ee saxiixa ku soo aroortay maka inuu ku duulo isagoo u xidhxidhan ayaa saxaabadiisii nin ka midi waraaq qoray uu u diray quraysh isagoo u digaya nebigu calayhi salaatu wasalaam
saxaabadii si qaar ka mida buu wuxuu yidhi cali iyo zubayr iyo miqdaad ibnu laswad nimanay ka mid yihiin buu nebigu diray calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi baxa waxaad tagtaan rawdatu khaakh meesha la yidhaahdo gabadh baa halkaa ugu tegi doontaan gabadhaasi qoraal bay sidaa waraaq bay sidaa waraaqdaa ka soo qaada saddexdii saxaabi waa soo socdeen meeshii uu nebigu u tilmaamay calayhi salaatu wasalaam markay marayeen ayay haweenay qof dumara la kulmeen qofkii dumarabaa waxay yidhaahdeen soo saar kitaabkaad sido akhrij ilkitaab waxay tidhi waxba ma sido cali bn abi aalib baa wuxuu yidhi annaguna been sheegi mayno beennana looma soo sheegin nebi maxamed wuxuu noo sheegay inay run bay ahayd annaguna been kuu sheegi mayno kala dooro inaannu dharka kaa dhigno kaa soo saarno iyo inaad adigu soo saarayso labadaasi un kala dooro markay aragtay inay rasmi ka tahay ayay soo saartay riwaayaadka qaarna guntayga ka saartay qaarna timahay sheegaane calaa kulli xaal meeshay ku qarsanaysay ayay ka soo saartay dabeetana nebiga calayhi salaatu wasalaam ayay u keeneen waxay culimmadu yidhaahdaan waa min umuuri alghayb xaatib iyo waraaqdu qoray cidima ogeyn gabadha tan iyo meesha ay marayso cidima ogeyn nebigu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay sidii uu tilmaamay baanay u dhacday waxyaabaha qaybka uu nebigu ka warramay calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah xadiidka saxiixa isna ku soo arooray bukhaari iyo muslimba abi xumayd assaacidi wuxuu leeyahy nebiga calayhi salaatu wasalaam baanu la baxnay ghaswatu tabuuk waadi lqura markaanu maraynay ayaanu beer qof dumari leeday ku soo baxnay markaasuu nebigu yidhi beertaa bal qiimeeya maxaa u malaynaysaan waxa ka soo go'i doona dabeetana in baanu ku sheegnay buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam isna waa qiimeeyo wuxuu yidhi 10 awr baa ka go'aya buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qoftii dumar ahaydna wuxuu yidhi naa sii tiriyo bal wixii ka go'a sii eeg intaanu kugu soo noqon doonno aad hadhow ka warrantid yacni wuu dhaafay markii ay soo noqdeen ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi saxaabadiisii tabuuk caawa dabayl baa soo dhici doonta dabaylshaas waa dabayl adag qofna yuu istaagin xoolahana ha la xidhxidha buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam caawa dabayl baa soo dhacaysee dabayshaasi waxbay idin yeeli doontaa weeyaane qofna yuu istaagin xoolahana ha la wada xidha buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam habeenkii baa dabayshii soo dhacday nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam dabeetana nin baa istaagay meel buura jabalu tayib ay ku tuurtay baaba la yidhaahdaa markii uu soo noqdayna nebigu calayhi salaatu wasalaam qofkii dumaruu soo marayna wuxuu yidhi waa imisa waxay tidhi waa 10kii awr aad sheegtay 10kii awrun bay noqotay beerta wixii ka go'day xadiidka kani wuxuu tilmaamayaa say culamaa ilxadiid sheegayaan waqti aan taqsiga laga saadaalin jirin iminka hawada waa la saadaaliyaa soo maaha waxbaa la xisaabiyaa la isu geegeeyaa saadaashu run iyo beenba waa noqotaa laakiin marar badan waa la dhadhaweeyaa laakiin waqtigaa uu nebigu warramayo calayhi salaatu wasalaam cidi hawada ma saadaalin jirin aqoonteedna ma oolin qaab loo saadaaliyaana ma jirin haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa inay caawa dabaylina soo dhici doonto waxyeelana geysan doonto ee inaan qofna istaagin xoolahana la xidhxidho ciddii istaagtayna inay dabayshii qaaday walidalik buu imaamu nawowi raxmat ullaahi calayhi wuxuu leeyahay waa mucjiso muuqata oo daahira oo sheegaysa nebigu calayhi salaatu wasalaam qaybka uu ka warramayay waxaa kaloo ku sugan buu leeyahay xadiidka nebigu siduu ugu naxariisanaya ummaddiisa iyo masaalixdooda siduu ugu heeganka ahaa iyo waxaa dhibaya diin iyo dunyaba inuu uga digayay saxaabadiisa waxyaabaha qaybka ee wakhtigiisii dhacay ee uu nebigu ka warramay waxaa ka mid ah calayhi salaatu wasalaam ghaswatu mu'ta iyo 3dii saxaabiye hogaaminaya la dilay nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo madiino jooga ayuu wuxuu sheegay saxaabigii koowaad ee calanka muslimiinta hayee dagaalkaasi hogaaminaya in la dilay markaasuu wuxuu yidhi raayadii zayd baa qaatay
markaasuu nebigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam in la asiibay markaasuu yidhi jacfar baa qaatay markaasuu sheegay in la asiibay markaasuu yidhi ibnu rawaaxa cabdullaahi ibnu rawaaxa qaatay markaasuu nebigu sheegay yacnii markii horeba uu nebigu saxaabadan direeyey 3 nin buu madax ka dhigay wuxuu yidhi hebel baa dadka imaam u ah raayada u sida haddii la dilo hebel baa sidaya haddii la dilo hebel baa sidaya 3 buu tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam markii dagaalkii dhacayay isagoo madiine joogo oo aan joogin mu'ta iyo meeshii dagaalku ka dhacayay saxaabadiisa wuxuu u sheegayey in la dilay saxaabiga koowaad ee calanka siday oo uu sheegay in kii kala qaaday haddana wuxuu sheegay in kii kalena la dilay wuxuu sheegay haddana kii saddexaad in la dilay kadib buu nebigu yidhi calankii waxaa qaaday sayfun min suyuufi illaah xataa fataxa allahu calayhim sayf seefaha ilaahay ka mid ah khaalid binu waliid oo aan markaa isagu amiirba ahayn ee ciidankun ka mid ahaa ayaa markay marxaladdu adkaatay ee saxaabadii maamulka hayeen la laayay ayuu isagu la wareegay imra min nafsihi iyabuu la wareegay dabeetana dadkii muslimiinta ah buu badbaadiyey imaamu طaxaawi wuxuu leeyahy wa fiihi calamun ظaahiru min aclaami الnubuwa waa tilmaam cad oo ka mida tilmaamaha nebinimada bay tilmaamaysaa waxyaabaha qaybkii wakhtigiisii uu ka warramay waxaa ka mid ah xadiidkii bukhaari mucallaqa uu ku soo aroorinayey ee abu hurayra xadiidkaasi wuxuu sheegaya abu hurayre oo xoolihii sakada loo dhiiboo haya ayaa habeenkii tuugu yimi dabeetana tuuggii buu qabtay tuuggii wuu bariyey oo wuxuu sheegay inuu carruur iyo dad baahan ka yimi ee iska kay sii daayay oo iska sii daayay abaa hurayriya tuugga waxaa dhex maray dee labadoodunbaa isla ogaa subaxii markuu nebiga u yimi uu yidhi abu hurayrow ka warran xalay ninkaa is aragteen maxbuuskaagii xalayto ka warran buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam abaa hurayra wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow dee waan qabtay oo kadib markii aan qabtayna carruur iyo baahi iyo waxbuu sheegtayoo waan iska sii daayey yacni laazim maaha tuugga haddaad qabato ilow in gacanta la gooyo aad qaanuunka horgeysaa shardi maaha waa la cafi karaa ciddii waxa gacanta ku haysay inkastoo tani ay tahay hadduuse qaanuunka soo gaadho lama cafiyo tanise waa zakawaad iyo xoolihii ummadda ka dhexeeyey oo iyadu marka horeba shubahaadka yacni waxyaabaha dar-u shubhaa kuwa laga fayda bay ka mid tahay waanu cafiyey buu yidhi waanu naxariistay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi been buu kuu sheegay wuu kugu soo noqon abu hurayra marka kan tuuggii waa soo noqonayaa baa la yidhi waa diyaar garoobay habeenkii dambuu soo dhacay haddana abaa hurayra qabtay sidii si leeg buu sheegay dabeetana abu hurayra uu iska cafiyey subaxii dambuu nebigu yidhi ka warran asiirkaagii xalayna intii in leeg buu sheegay carruur iyo waxbuu sheegtay baahiya waa iska sii daayey wuxuuhi been buu kuu sheegay wuu kugu soo noqonaya wuu soo noqday kadib markii uu soo noqday ayuu haddana mar kale nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi abu hurayra been buu kuu sheegay wuu kugu soo noqon abu hurayra habeenkii dambena u diyaar garoobay waa qabtay markuu qabtay buu baahi iyo wixii buu sheegtay markan lagama sii daynayaa la yidhi war maanta aqoon baan ku barayaa buu yidhi cilmaan ku barayaaye cilmigaa qaado isii dah waa maxay buu yidhi wuxuu yidhi haddaad ayar kursiga akhrisato shayaadiinkan iyo jibankan iyo waxaanay kuu soo dhowaan maayaan iyadaa xirsi ku ah soomaalidu qardhaasay raadinaysaaye qur-aanka oo la akhristaa baa ku filan iyadaa xirsi ku ah buu ku yidhi haddaad akhrisato subaxii buu nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam markaasuu u sheegay wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam sadaqaka wahuwa kaduub markan run buu kuu sheegay isagoo beenaalaha buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam midhka kan ah aad kursiga in la iskaga akhriyo qolada tani waa run buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam xadiidka kan wuxuu leeyahy ibnu xajar wa fiihi iطilaacu nabiyi sala allahu alayh waalihi wasalam cala almugayibaat waa wax tilmaamaya inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay taalac siiyey waxyaabaha qaybka ka mid a idan kuwaasi waa amhila waa tusaalayaal aan u soo qaadannay wixii dhacay qaybkii uu nebigu ka warramay wakhtigu noolaa aan sheegno kuwa ka gadisan oo ah qayb uu nebigu ka warramay calayhi salaatu wasalaam
oo dhacay isaga gadaashi nabigu calayhi salaatu wasalaam masaa'ilkan qaybka uu ka warramayo ma aha sida baynu nidhi sixiroolayaasha iyo falaloyaasha hal masalo ama laba masalo intuu faal dhigdhigay uu sheegaya ma aha waxaan leenahay waa waxyi ilaahay soo diray oo aad u tiro badan ولذلك بقى حذيفة بن اليمان حديث الصحيحين ككويال وحليه نبي عليه الصلاة والسلام بقى خطبة دايي بيقولي وكور ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره وحلا قيامها دعيا مجران بولي لا النبي عليه الصلاة والسلام واشاقي علمه من علمه وجهله من جهل بيقولي نكي قرطون با قرطي نكي آن قراننا وهذا أفطي بولي حذيفة مركا وحليه وحيابو النبي كور رميي انت ان إلابه ايا مركاي دعضه ايما ديبو حسوسين جري بكولي سيدي قف اتقاني او كا تغاي او aan muddo xasuusan markuu ka soo horbaxo dib aad xasuusanaysa arrimo badan oo nabigu sheegay ba saaygu wada noqday buu leeyahay intaan xifdigii waxaan ilaabay ayba hadhow markay dhacdo maan idhaahdaa buu Allah waati nabigu sheegay alayhi salatu wasalaam ibn hajarna wuxuu leeyahay majlis waahida ilaahi waxyaabi uu nabigu siiyay waxa kamida jawaami'ul kalim هذا الكال الله كوابو لو أروريي دبتنا مجلس واحدة أي دوني بلا وقاعد إلا دمات كذا كجو الرمي النبي عليه الصلاة والسلام وحكى قفلا مثلا هالحديث عن تلمامو صحيح مسلم ككوية الله عمر بن أخطب الأنصاري صحابي قال لي ورينا يوح ليه نبي قال صلاة صبح نتوكيي دبتنا منبر كفولي وصلاة صبح مركو تكذي نبي قبوم منبر كفولي خطبة بو بلابي salaadii subax markii laga baxay khudbadu nabigu bilaabay saxaabaduna fadhido ayaa duhur lagu adimay sidii loo fadhiyay duhur baa la adimo waa la tukaday markii la tukaday ayuu nabigu minbarka dib u fuulay markaasuu waday siduu waday baa casr lagu adimay markaasuu soo daadago uu tukaday nabigu calayhi salaatu wasalaam markii la tukaday casr ayuu haddana nabigu minbarka dib ugu noqday wuu waday إلى إيا عدعيد أي كدعيسي نبي محمد وحو هدلي عليه الصلاة والسلام يعني علماء مسألة وحي ودلي شدان سمنا الرضا الإسلام قاية وحيابان يريري مالين طبعا ساعدود أبلح ساعدود لسلقسين أيوه مالين قولوا نبي محمد صحابة من صلاة الصبح لقب حي إلى إيا صلاة المغرب لقب قارية انت كدح له أيو هدلي انت كدح له منبر سهراء أو نبي عليه الصلاة والسلام وحشيغي وحو صحابي قال لي فأخبرنا بما هو كائن إلى يوم القيامة وحو النبي قلنا وقور رمي يقول لي وحد عدونا إلا أي قيامها فأعلمنا أحفظنا بيري وحو مبان مانتان نوغو علم بدنا نكي نوغو حفظ بدنا وركا لشيغي من صلاة دي الصباح إلى إيو مغرب انت لغا قاد إيو نكو كحفظ بدنا أما كوحقبض بدنا أيوم بو محي كقب الشبط نابوت المامية إذا النبي عليه الصلاة والسلام وحيابها وكور رمي ووحاد اضطرب لغيب ككسابسا إيه قداشي دعضي كوانا أنا أمثلك بحية مركة النبي عليه الصلاة والسلام وحشاقي حديث البخاري ورينيو أم حرام بنت ملحان قبل دي لورين شري صحابية داهي أيوح النبي يدو لشكتو حدا أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا عيدا كوه الرياء ومضى إذا بطك دقالمه وواجبت يعني جنة واجبتي مسلمين تدواجه هره بدل ما يركين إن يدرول صحراء ينتن دقان كي كتيره لكن مركاي مسلمين تكدقالمان بدأ إن يقالان كواس وواجبتي بيد عيدا كوه الرياء أم حرام باوحي تري يا رسول الله أنا فيهم كوا وكمده إلهي رسول كسيو يعني يقول دعاهم كوا كم النغضة نبي حكوي لي هويريدا أنت فيهم أدونا كم باتي كوا بدك تدقالم الدولة وإسلام عربيت ومدينة شوكته أي نبي محمد وحوش يجي عليه الصلاة والسلام إن يبدك الدقال قلي دونت ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول جيش من أمتي يغزون مدينة غيسر مغفور لهم عيدا كوقوه الرئي مسلمين ويرره مقالة قيصر وماشي نمك اسطنبول ليدا هذا تركيا كوتالا عاصمة الدولة العثمانية هانشرتي
magaalada qaysar ciidanka muslimiinta ugu horeeya weerara waa maghfuurun lahum buu nebigu yidhi kuwa ilaahay dembigoodu dhaafay saxaabiyadii meesha fadhiday waxay tidhi ana fiihim ya rasuula allah kuwaana igu dar kuwaana ma ka mid ahay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi laa kuwan kuma jirtid ibnu xajar wuxuu leeyahay xadiidka kan waxaa ku sugan buu leeyahay wax tiro badan oo ka mid a calaamaat nubuwa kow waxaa ku sugan buu leeyahay ummaddiisu nebiga gadaashi inay badan doonto faafi doonto joogi doonto bibiqaa'i ummati bacda waxaa kaloo ku sugan buu leeyahay ummadda isaga ka dambaysa nebigu calayhi salaatu wasalaam muslimiinta ahi inay noqon doonaan asxaabu quwatin wa shawka wa nikaayatin fi lcaduw duul xooggan oo rag iska dhicinaya oo badaha gelaya inay noqon doonaan waxaa kaloo ku jira buu leeyahay xadiidkan uu nebigu tilmaamaya isaga gadaashii dadka muslimiinta ahi inay badda weerari doonaan waxaa kaloo xadiidkan ku jira oo qeybka ka mida buu yidhi ilaa inta badda laga weeraraya inay umu xaraam noolaan doonto waanay geeriyooraynin inay noolaan doonto ilaa iyo muslimiintu intay badda ka gelayaan waxaa kaloo xadiidkan ku jira inay gabadhani ka mid noqon doonto saxaabada badda gasha ee dagaalada qaadi doonta waxaa kaloo xadiidkan ka mid ah inaanayse ka mid noqon doonin oo gaadhi doonin kuwa madiinatu qaysar weerara wuxuu leeyahay xadiidka kani intaas oo mas'alo oo qayba oo dhammaantood dhacay nebiga gadaashi ayuu xadiidkan qura tilmaamaya waxaa kaloo jira isla xadiid saxiixaynka ku yaalla oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu gabadhan gurigeeda seexday dabeetana wuu toosay isagoo qoslaya markaasay tidhi ma yadxikaka ya rasuula allah maxaa kaa qosliyay ilaahay rasuulkiisiiyo markaasuu nebigu wuxuu yidhi ummaddayda qaar ka mida laysoo bandhigay oo ghuzaatun fii sabiili illahi yarkabuuna habaja hada albaxr oo ilaahay dartii u jihaatamaya oo baddatan dusheeda mari doona muluukan cala lasira iyagoo ah boqorro sariirahooda ku fadhiyo kale sida boqorku markuu carshigiisa ku fadhiyo kale iyagoo ah qolo muslimiinoo jihaatamayso badda kor mari doontaa la ii sheegay buu yidhi aw mila almuluuka cala lasira markaasaa waxay tidhi udcu allaha an yajcalanii minhum ilaahay rasuulkiisiiya uu ii ducee in kuwa alla igu daro fadacaa laha nebigu waa ugu duceeyey dabeetana dib buu u seexday waa gamay haddana wuu soo toosay isagoo qoslaya markaasay umu xaraam tidhi maa yadxikaka ya rasuula allah maxaa kaa qosliyay ilaahay rasuulkiisiiyo wuxuu nebigu yihi ummaddayda qaar ka mid ah oo ghuzaatun fii sabiili illaahiya markaasaa waxay tidhi yaa rasuula allahi udcu allaha an yajcalanii minhum ilaahay ii barin kuwaa ilaahay igu daro qaala anti min alawaliin buu nebigu yidhi adigu kuwii horeed ku jirtaa umu xaraam bintu milxaan waxaa qabay cubaadata bnu saamit saxaabigii la odhan jiray waxay culamaa'i taariikh wariyaan cahdigii mucaawiye yacni mucaawiya markuu shaam iyo dhankaa haystay inay dagaalada ka qayb gashay dagaalkii qubrus bay ka qayb gashay lagu furtay xabaasheedana imaamu tabraaniyi wuxuu soo aroorinayaa inay qubrus ku taalla xabaashii umu xaraamo macruuf ay tahay yaa ogeysiiyey nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam haweeneyda tan madiine joogta intay badda ka dagaal gasho inay jihaatami doonto bad ka dagaalgeli doonto waxaa la yidhahdaa markii qubrus la furtee la soo noqonayay ayaa bahashii baqasheedii fuushanayd baa la dhacday dabeetana way dhimatay halkaas bay ku geeriyoto ku shahaado qaadato waxyaabuu nebigu ka warramay waxaa ka mid ah tabuk iyadoo la joogo ayuu cawf ibnu maalik saxaabigii la odhan jiray buu wuxuu ku yidhi ucdud sitan bayna yaday saaca cawf ibnu maalikow lix tiri inta aan qiyaamuhu dhicin buu leeyahy lix shay oo ka horreeya qiyaamahaad arki doontaa markaasuu yidhi waa maxay ilaahay rasuulkiisiiyo waa tirinayaa waxaa la yidhi waxaad ugu horreeya aad la kulmi doontaa mowti aniga geeridayda qiyaamaha hortii baan dhimanayaa buu nebi moxamed leeyahy calayhi salaatu wasalaam uma fatxu beyt ilmaqdis boqorkaa hiraqale aynu sheegaynay dhul oo dhan soo qabsadee kisra jebiyey bayt ilmaqdiskiisa la furo doonaa
ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم كدبنا جيربا إذن هلالي دونتا سيدا أري هلم بقلايو كلام النبي يعني أري حنونا ذن هلم بو كلام مرقودعو ترب بودنتا كوح جيري كوح إذن ليس إذن هلالي دونتا ثم استفاضة المال حتى يعطي الرجل 100 دينار فيظل ساخطا كدبنا حولها بدن دون ابو النبي عليه الصلاة والسلام إلى ينن لغا سيو 100 دينار هو ذهب 100 دينار ذهب الله سيو أو عريسنان دونه يدو حال سيي ثم فتنة لا يبقى كدبنا وحدع دونتا فتنة قرع عربيدان وشوقي دونين إلا وقلي دونتا كدبنا وحدع دون ابو النبي ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر هشيس إذن دحمرة إذنك يا بني الأصفر كوا الرومانيسكا ويوروبيانكا نمانكا عض فيغدرون كدبنا هشيس كي تشبين دونان أو وحي إذن لا إيمان دونان تحت 80 غاية سديتا ألويو سديتا رايو سديتا علن بنديرادود يغو سيتايدن سو ويرري دونان أو بنديرات كستا لبا إيو طبان كونو عسكري كوهوس شرتبو نبي عليه الصلاة والسلام حديث كان وحو شيغايا 6 dhacdo oo kala dambeeya nabigu siduu u ratibay bay u dhacaysaa 6daniba kaasa dhici doona dabeetana kaasa dhici doona dabeetana kaasa ku xigi doona thumma bu nabigu isticmaalaya ugu horeyn nabiga geeriyoon doona kadibna waxa la qabsan doona bu nabigu bayt al-maqdis nabigu sanadkii hijriyada 10 meelaha soo geeriyooday Soomaa kadibna bayt al-maqdis waxa la qabsaday ال15 من الهجرة شنية بن مركي هجرية مريسي وقت عمر يا بيت المقدس الغبطي كدبنا طاعون عمواس بادعي طاعون كي شام قلي الصحابة دي كوتر هذا بدنيد لاي سنة كي سيدي طبناد وقت عمر بودعي كدبنا حولها بدن دون ابو نبي عليه الصلاة والسلام عهدي عثمان بيبتين بالله يرادا كدبنا فتنة dhici doonta oo futuuxaadka tirabatay oo xoolo badan oo muslimiinta soo galay kadibna fitna dhici doonta buri fitnada tani waa dilkii Uthman fitnadii ka bilaabantay ee muslimiinta dhexmartay calaamada ugu dambaysa wali may dhicin bay culimadu yiraahdaan waana min calaamati saaca xaga dambe oo kuwa ka dhici doona oo ah reer galbeedka inta heshiis la galo inay heshiiska burin doonaan kadibna intay muslimiinta khiyaamayaan iyagoo 80 bandiiradood sita oo bandiirad kasta 12 kun oo askari wata inay soo weerari doonaan dadka muslimiinta xadiidkani waxa uu tilmaamayaa isaguna dhacdooyin uu nabigu ratibay axaadiis badan oo kuwan u dhigma ama la noocaba soo arooray waan soo koobaynaa waxyaabaha nabigu uu ka warramay dabadii dhacay waxa ka mid ah wax walba misaal baan ka soo qaadanaya qisadii Uways al-Qarani nabigu عليه الصلاة والسلام wuxuu sheegay saxaabadiisii Yaman ciidamada ka iman doona muslimiinta inuu nin la socon doono Uways al-Qarani la yiraahdo ninkaasi nin baras ku dhacday buu yahay dabeetana ilaahay bariyay baraskii ka bogsaday meel dirham la saaro yani shilin meel la saaro in leeg ayuun baa wali cad oo calaamadii kaga taala hooyo quru leeyahay hooyadiina wuu samafalaa waa nin qabiilkiisu مراد يقرن يهي نبي عليه الصلاة والسلام ورطب نكاو شاق يا هذا الله كلانتان بالنبي كويل الصحابة ديسي كدو عيست وحوت الأذان إلهي دم بدفن ويدي عمر عهد جيسي مركي أي كسرى دولة ديسي بابينيين وفتوحاتكم السعودي أي مدى تربضا ciidamo badan oo taakulayna Yemen ka yimaada ciidamada Yemen ka yimaado weydiiya ma idinku jira nin Uways la yiraahdo markii dambe loo sheegay Uways buu yeeray wuxuu war magaca wuxuu Uways baa la yiraahdaa hooyo ma leedahay buu yiri haa buu yiri baras ma kugu dhacday haa buu yiri ilaahay ma barido baraskii ma ka bogsatay meel yar oo halka xudurta kaaga beegan oo dirham meel la saari karaa haa buu yiri هذا بابو إلهي دم دافي ويدي بعمر كويري وارتك صحابي يا نبي محمد الله نولاي
anuu nebigaba maan arag adigu ii ducee buu yidhi wuxuu ku yidhi cumar nebigaan maqlay calayhi salaatu wasalaam oo leh taabiciinta waxaa u khayr badan ninka Uways la yidhaahdee sidaas iyo saasee waxaa calaamaddaa leh caynkaasi haddaa aragtaa ka ducaysta ee ii ducee nebi maxamed baa caynkaa ay amray markaasuu u duceeyey kadib ayuu ciidankiisa ka sarraaca waraaqan kuu qoro buu yidhi waxba hay qorin buu ku yidhi caamada dadkaan uu ka tirsanaanayaa xadiidkani waxa uu tilmaamayaa mucjiso ama daliil min dalaa'il الnubuwa oo nebigu calayhi salaatu wasalaam qaybku ka warramay sidii uga warramay inuu dhacday dhacdooyinka kale nebigu tilmaamay aan wax ka tilmaamayana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay in magaalada madiina dab uu ka kici doono busra shaam busra waa magaalo meesha nimanka suuriya la yidhaahdo ku taalla busra shaam laga arki doono لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى أبو نبي عليه الصلاة والسلام قيامه مدعي دونا إلا يا أرض الحجاز أي ضبككعه قاله يعني هلكا لغا أركي دونا بصرى الشام لغا أركي دونا إمام النووي وحليه هي وقت يجيان النولين 654 taariikhdu markay maraysay ayaa dabkan weyni ka dhacay ibnu kathiir baa tilmaamaya wuxuu leeyahay wuxuu noo soo naqliyey buu yidhi shaykhu alxadiidi wa imaam almu'arikhiin waqtigiisii waa shahaabudiin cabdiraxmaan ibnu ismaaciil almulaqab abi shaama sheekhii la odhan jiray taariikhdiisa wuxuu ku soo naqlinaya uu leeyahay maalin jimce 5tii jamaad alaakhira sanadku markuu ahaa 456 hijriyadu ay maraysay waxaa magaalada madiine ka kacay dab laga arkay bidhaantiisa busra shaam laga arkay yani nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay si mutawaatira baa loo arkay axaadiistii nebigu sheegay waxaa ka mid ah dajaalin inay soo bixi doonto kuwa nebiya sheegto isaga ka dambeeya kuwa uu nebigu ku sheegay qaar wuxuu ku tilmaamay laba ka mid ah waa ka yidhi waxaan idinku ta'wiiliyey bahaaladii sawaradii uu ku riyooday uu afuufay waa aswad alcinsi iyo maxay musaylamat alkadaab marka aan tilmaamno axaadiis aada u tiro badan oo baabkan ku soo wada aroortay oo masaa'ilkan ka warramaysa ayaa jira waxaan rabaa markaa inaan ku soo koobo nebigu calayhi salaatu wasalaam akhbaarta uu sheegay oo aad u tiro badan leh axaadiis aad u tiro badanina ku soo aroortay waxaynu caawa kaga koobsan doonaa labadaa qaybood ee qaybna aynu nidhi wakhtigu noolaa ayuu warramay intuu noolaana waa la arko way dhacday qaybna aynu ku tilmaamnay bacda mowtihi ayuu wuxuu tilmaamay inay waxaasi dhici doonaan wixiina dadkii muslimiinta ka dambeeyey way xaqiiqsadeen way arkeen kullu dalikna waa min dalaa'ili nubuwati qayb badan oo qaybtan ka tirsan baa hadhsan iyo qaybihii kale ee iyana ka tirsanaa mucjisaadkii xisiga ahaa kuwa dhagxan ku saabsan kuwa dhir ku saabsan kuwa xoolo ku saabsan kuwa dayax dilaacay ku saabsan kuwa yacni aad u tiro badan oo xisiya iyana soo arooray in shaa allahu tacaala maa bacda alxaj haddaynu waqti u helno ayaynu ka warrami doonaa صلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين